waxay leedahay maamo waayeel ah waxaan lahaa 3 wiil saddexduba way wada guursadeen waxay tiri waxaan booqday midkii ugu weynaa waxaana ka dalbaday inaan la dego aan la noolaado isaga subaxdii ayaan ka dalbaday xaaskiisa inay ii keento biyo aan ku weysa qaato markii ay ii keentay kadib waan weysa qaatay waana tukaday markii aan tukaday kadib biyihii weysada ka soo haray ayaan ku shubay sariirtii aan ku jiifay subaxnimadii markii ay ii keentay shaax waxaan ku yiri gabadhaydii tani waa xaalka dadka da'da ah waxaana ku kaadiyay firaashka xaaskii ayaa ku soo jeesatay oo ku qaylisay hooyadii waxayna tiri maamadii waxay maqashiisay hadallo kuwa ugu xun waxayna iga dalbatay inaan dhaqo firaashka kadibna aan nadiifiyo waxayna igu tiri mar kale ha u laaban arrintani oo kale waxay leedahay maamadii waayeelka ahayd iyadoo sii wada qisada waxaan muujiyey caro daran waxaana dhaqay firaashkii waana qalajiyey waana baxay si aan ula dego wiilkayga dhexe yacni midkii weynaa kan ku soo xigay waxay tiri maamadii waxaan sameeyey isla sidii aan sameeyey oo kale oo firaashkii ayaan ku shubay biyo xaaskiisii way xanaaqday wayna qaylisay waxayna arrinkii u sheegtay ninkeeda oo ahaa aniga wiilkayga ma uusan aamusiinin mana uusan dhibaataynin waxay tiri maamadii waan ka soo tegay agtooda si aan ula soo dego wiilkaygii ugu yaraa yacni 3 wiil midkii ugu yaraa waxay tiri maamadii waxaan imid guriga wiilkayga waxaana sameeyey isla sidii aan ku sameeyey xaasaskii wiilashayda midkii weynaa iyo kii dhexeba markii ay ii keentay xaaskiisa shaaxii subaxnimada kadibna aan u sheegay inaan ku kaadshay firaashka waxay igu tiri dhib ma lahan hooyo tani waa xaalka dadka da'da ah imise ayaynu ku soo kaadinay korkiina inagoo aad u yaryar